taariikhda islaamka waxaa ku xardhan magacyada rag iyo dumar, naftooda, maalkooda, iyo wakhtigooda oo u huray diinta Alle. Laakiin magacyadaas dhexdooda waxaa jira mid si gaar ah uga iftiimaya laba sifo ay adag tahay in la isku helo: xishood xad-dhaaf ah oo ay malaa'igta ka xishooto, iyo deeqsinimo aan xad lahayn. Qisadeenna maanta waa sheekada ninkii rasuulka uu u guuriyey labadii gabdhood ee uu dhalay, taasoo uu ku mutaystay naanaysta aysan cid kale la wadaagin ee ah Dan-nuurayn. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Cusmaan ibnu Cafaan, Allaha ka raali noqdee. Safarkan dheer waxaan si qoto dheer u dhexgeli doonaa dadweynta noloshiisii, laga soo bilaabo noloshiisii sharafta lahayd ee jaahiliyada ilaa islaamidiisii, hijradiisii 2 jeer ahayd, deeqsinimadiisii taariikhda gashay, khilaafadiisii barwaaqada iyo furashooyinka, iyo ugu dambayn imtixaankii weynaa ee fidnada iyo shahiidnimadiisii murugada lahayd. Cusmaan waxa uu ka dhashay qoys ka mid ah kuwa ugu sharafta iyo hantida badan ee reer Quraysh, wuxuuna ka dhashay qoyska reer Bani Umayya. Waxa uu ahaa nin aad u qurux badan, deeqsi ah oo jilicsan, taasoo keentay in dadku ay aad u jeclaadaan. Laakiin sifadiisii ugu weyneed waxay ahayd xishoodkiisa. Waxa uu ahaa nin aad u xishood badan. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, miyaydan ka xishoonayn nin malaa'igta ay ka xishooto? Xitaa xilligii jaahiliyada waxa uu ahaa nin ka fog wasaqdii iyo dhaqamadii xumaa ee bulshadiisa. Marnaba sanam ma uusan caabudin, marnaba qamri ma uusan cabin, marnaba sinna uma uusan dhowaan. Dabeecaddiisa waxay ahayd mid nadiif ah. Waxa uu ahaa ganacsade guulaystay oo daacad ah. Hantidiisa badan iyo maqaamka sare ee bulshada dhexdeeda uu ku lahaa waxay ahaayeen wax uu Alle ugu talagalay in mustaqbalka ugu adeego diinta Islaamka. Cusmaan waxa uu ka mid ahaa kuwii ugu horeeyey ee Islaamka qaata. Islaamidiisa waxay ku timid gacanta Abubakar as-Sidiiq. Abubakar markii uu soo bandhigay diintan cusub, Cusmaan oo ahaa nin caqli badan oo qalbi saafi ah, kama uusan labalabayn, wuxuuna gartay inay tahay xaq. Islaamidiisa waxay u keentay dhibaato. Adeerkiisa Al-Xakam si xun ayuu u jirdili jiray, wuuna xirxiri jiray, wuxuuna ku yidhi, ma waxaad ka tegaysaa diintii awoowayaashaada? Laakiin Cusmaan waxa uu ku adkaystay iimaankiisa. Markii cadaadiska uu ku batay muslimiintii Maka, Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu idmay inay u haajiraan dhulka Xabasha. Cusmaan iyo xaaskiisa Ruqiya oo ahayd gabadhii rasuulka waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyey ee qoys ah ee u haajira jidka Alle. Waxay ahayd safar dheer oo adag. Waxa uu ka tegey hantidiisii iyo ganacsigiisii, isagoo doortay inuu la cararo diintiisa. Kadib markii ay soo noqdeen, waxa uu mar kale sameeyey hijradii 2aad ee weyneed, isagoona u haajiray Madiina, halkaas oo mar kale wax walba dib uga soo bilaabay eber. Labadan hijro waxay ka marag kacayaan sida adduunyada uga doorbiday aakhirada. Maqaamka Cusmaan ee Nebiga agtiisa waxa uu ahaa mid aad u weyn. Waxa uu siiyey gabadhiisii Ruqiya markii la aaday dagaalkii Badar. Ruqiya way xanuunsanayd. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu Cusmaan ku amray inuu u haro si uu u daryeelo xaaskiisa, wuxuuna u sheegay inuu la wadaagi doono ajarka iyo qaniimada dadkii dagaalamay. Ruqiya waxay geeriyootay maalintii guushii Badar ay Madiina soo gaartay. Geeridaas Cusmaan waxay ku reebtay murugo weyn. Cumar ibnu Khadaab ayaa isku dayey inuu u guuriyo gabadhiisii Xafsa, laakiin Cusmaan waa uu ka cudur daartay. Cumarna arrintaas wuu ka xumaaday, wuxuuna uga cawday Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Nebiga wuu u dhoola caddeeyey, wuxuuna ku yidhi, waxaa Xafsa guursan doonaa mid ka qayr badan Cusmaan. Cusmaanna waxa uu guursan doonaa mid ka qayr badan Xafsa. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isaga ayaa guursaday Xafsa, wuxuuna Cusmaan u guuriyey gabadhiisii kale ee Kalsuun. Markii uu guursaday labadii gabdhood ee rasuulka, waxa uu helay naanaystii sharafta lahayd ee Dan-nuurayn. Markii ay iyaduna dhimatay Kalsuun,
nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, haddii aan gabarh saddexaad lahaan lahaa, isaga ayaan u guurin lahaa. Tani waxay muujinaysaa sida nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu u jeclaa una aaminay Cusmaan. Haddii xilligii jaahiliyada Cusmaan uu ku caan ahaa deeqsinimadiisa, Islaamka dhexdiisana deeqsinimadiisii waxay gaartay heer aan la malaysan karin. Waxa uu maalkiisa u arkayey waxa uu Alle u siiyey si uu ugu bixiyo jidka Alle. Laba dhacdo oo waaweyn ayaa si gaara u muujinaysa badweyntan deeqsinimada ah. Markii muslimiinta ay soo gaareen magaalada Madiina, waxay la kulmeen biyo yari. Biyaha macaan ee magaalada waxaa lahaa ceel la yidhaahdo Bi'r Ruuma oo uu lahaa nin Yahuudiya kaasoo dadka si qaaliya biyaha uga iibin jiray. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, qofkii iibsada ceelka Ruuma oo u sadaqeeya muslimiinta waxa uu leeyahay il jannada ku taala. Cusmaan ayaa isla markiiba dhaqaaqay. Yahuudigii waxa uu diiday in ceelka oo dhan uu iibiyo. Cusmaanna waxa uu ka iibsaday ceelka barkiisa, waxauna kula heshiiyey in maalin isaga uu leeyahay, maalinta kalena Yahuudiga uu leeyahay. Maalintii Cusmaan dadka waxa uu oggolaaday inay bilaash ku cabaan, waxayna qaadan jireen biyo 2 maalin ku filan. Yahuudigii markii uu arkay in maalintiisa ay cidina wax ka iibsanayn, waxa uu ku qasbanaaday in barkii kalena uu ka iibiyo Cusmaan. Sidii ayuu Cusmaan ceelkii oo dhan ugu sadaqeeyey muslimiinta, waxa uuna helay bishaaradii weyneed. Dhacdadii labaadna waxay ahayd markii la aadayey dagaalkii Tabuuk. Waxay ahayd xilli abaar ah oo kulul, cadowguna waxa uu ahaa Roomaanka oo awood badnaa. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu asxaabtii ku booriyey inay wax sadaqaystaan. Cusmaan waxa uu keenay 1,000 awr iyo qalabkoodii. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu sii waday dhiirigelintii. Cusmaan waxa uu yidhi, aniga ayaa dusha saaranaya 100 kale. Waxa uuna sii waday ilaa uu buuxiyey 300 oo awr iyo qalabkoodii, 50 faras iyo 1,000 diinaar oo dahab ah. Waxa uuna ku shubay dhabta rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Nebiga waxa uu yidhi isagoo faraxsan, maanta kadib wax dhibaato uma keeni doonto Cusmaan wax kasta uu sameeyo. Sanadkii 6aad ee Hijriga, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo 1,400 oo asxaabtiisa ka mid ah waxay u soo baxeen si ay u gutaan cumro. Quraysh ayaa hor istaagtay. Wadahadal dheer kadib, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu u baahday nin aqli badan oo sharaf ku leh Quraysh si uu danjir ahaan ugu diro magaalada Maka. Waxa uuna doortay Cusmaan ibn Cafaan. Cusmaan waxa uu galay magaaladii Maka, waxauna u sheegay madaxdii Quraysh inaysan dagaal u imaan, balse ay u yimaadeen inay cumraystaan. Way ka diideen, waxayna ku yidhaahdeen, adiga haddii aad rabto dawaaf. Laakiin Cusmaan waxa uu ku yidhi, wallaahi ma dawaafayo ilaa rasuulkii Alle uu ka dawaafo. Markii wadahadalkii uu raagay, muslimiintii waxaa soo gaaray warar been ah oo sheegaya in Cusmaan la dilay. Tani waxay ahayd dhibicdii dabka shiday. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu fadhiistay geed hoostiisa, wuxuuna asxaabtii ka qaaday ballan adag oo ah inaysan cararayn, ayna u aari doonaan dhiigga Cusmaan. Ballantaasi waxaa loo yaqaanaa baycatu Ridwaan. Markii uu ballanta qaaday, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu qabtay gacantiisii midig, wuxuuna yidhi, Cusmaan waxa uu ku maqan yahay hawl Alle iyo rasuulkiisa ah. Kadibna gacantiisii bidix ayuu qabtay, wuxuuna yidhi, tani waa gacantii Cusmaan. Ma jirto sharaftan ka weyn oo ah in gacanta rasuulka ay noqoto wakiilka gacantaada. Dhacdadan waxay muujinaysaa maqaamka weyn ee Cusmaan uu ku lahaa qalbiga nebiga. Markii Cumar ibn Khadaab uu shahiiday, waxa uu khilaafada uga tegey 6 nin oo ka mid ahaa asxaabtii ugu waaweyneed si midkood ay u doortaan. Tartankiina waxa uu ugu dambayn isugu soo haray 2 nin, Cali ibn Abi Taalib iyo Cusmaan ibn Cafaan. Cabdiraxmaan ibn Cawf oo loo saxiixay go'aanka kama dambaysta ah ayaa 3 maalmood oo uu la tashanayay qof kasta oo Madiina ku nool. Ugu dambaynna subaxii dambe waxa uu masjidka dhexdiisa ku magacaabay Cusmaan ibn Cafaan isagoo da'diisa ay ku dhoweyd 70 sano. Khilaafadiisii waxay ku bilaabatay
jawi nabad iyo barwaaqo ah, waxayna socotay 12 sano. 6dii sano ee hore waxay ahaayeen sannado nabad ah, midnimo iyo furashooyin waaweyn ah. Laakiin 6dii sano ee dambe waxaa bilaabmay imtixaankii ugu adkaa ee ummadda soo mara tan iyo geeridii rasuulka kadib. Camalkii ugu weynaa ee khilaafadii Cusmaan waxay ahayd midaynta Qur'aanka. Markii furashooyinkii ay gaareen meelo fogfog, dadkii aan Carabta ahayn waxay bilaabeen inay Qur'aanka ugu dhawaaqaan si kala duwan, taasoo keentay khilaaf iyo is-eedayn. Xudayfa ibnu Yamaan ayaa arkay halistan, wuxuuna si degdeg ah ugu digay Cusmaan, isagoo la tashtay asxaabtii waaweyneed, waxa uu sameeyey go'aan taariikhi ah, wuxuuna amray in la keeno musxafkii lagu ururiyey Qur'aanka xilligii Abuubakar ee yaallay gurigii Xafsa. Wuxuuna magacaabay guddi uu hogaaminayo Zayd ibnu Saabit si ay u soo qoraan dhowr nuqul oo leh hal fal qoraal. Markii ay shaqadii dhammaatay, waxa uu amray in dhammaan wixii musxaf kale ah ee ay dadku gacanta ku hayeen la gubo si loo ciribtiro iskhilaafka. Wuxuuna u diray nuqulkii rasmiga ahaa magaalooyinkii waaweynaa ee Islaamka. Ficilkan geesinimada leh waxa uu badbaadiyey midnimadii ummadda iyo dhowrsanaanta kitaabkii Alle ilaa iyo maanta. Intaasi waxaa barbar socday furashooyin waaweyn. Waxaa la furtay Armeniya, Azerbaijan iyo inta badan dhulkii Faris, waxaana la aas-aasay ciidankii badda ee ugu horreeyey ee Islaamka, kaasoo qabsaday jasiiradda Qubrus. Dowladdii Islaamkana waxay gaartay meeshii ugu ballaarnayd. Guushaas iyo barwaaqadaas waxaa la socday imtixaan adag. Waxaa soo baxay kooxo qarsoon oo uu hogaaminayey nin Yahuudi ahaa oo la odhan jiray Cabdulaahi ibnu Saaba, kaasoo iska dhigayey inuu islaamay. Ujeeddadoodana waxay ahayd inay burburiyaan midnimada muslimiinta, waxayna bilaabeen inay faafiyaan dacayado iyo eedeymo been ah oo ka dhan ah Cusmaan ibnu Cafaan iyo guddoomiyeyaashiisii. Waxayna ku eedeeyeen qaraabakiil, sida in jagooyinka uu dhiibay dad qaraabadiis ah. Sida saxdaana waxay tahay waxa uu u dhiibay dad u qalmay sida Mucaawiya oo Cumar laftiisa uu horay u magacaabay. Eedaynta labaadna waxay ahayd maalbixin. Waxayna ku eedeeyeen in hantidii baytulmaalka uu siiyey qaraabadiisa. Sida saxdaana waxay tahay inuu bixiyey maalkiisii gaarka ahaa oo ahaa mid aad u badan. Dacayadii saddexaadna waxay ahayd gubitaanka musxafka. Tani waxay ahayd eedayntii ugu weyneed, laakiin waxa uu sameeyey isagoo la tashtay dhammaan asxaabtii waaweyneed ee Madiine joogtay. Dacayadahan waxay ku fideen magaalooyinka Ciraaq iyo Masar. Kooxihii fidnada waday way isku soo urureen, waxayna u soo kaceen magaalada Madiina iyagoo iska dhigaya inay cabasho qabaan. Kooxihii fallaagada ahaa waxay goodoomiyeen gurigii khaliifka, waxayna jareen biyihii, isagii oo ahaa ninkii iibiyey ceelkii Rooma. Asxaabtii waaweyneed sida Cali, Dalxa iyo Zubayr waxay u soo direen wiilashoodii si ay u difaacaan albaabka guriga. Laakiin Cusmaan waxa uu qaatay mowqif adag, wuxuuna si adag u diiday in dhiig muslimiin ku daato magaalada Madiina isaga dartiis. Wuxuuna amray in dhammaan dadkii difaacayay ay hub ka dhigaan oo ay guryahoodii aadaan. Wuxuuna doortay inuu naftiisa huro si uu u badbaadiyo magaaladii rasuulka. Habeenkii ugu dambeeyey waxa uu riyo ku arkay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, Abuubakar iyo Cumar. Waxayna ku yidhaahdeen, Cusmaanow soo degdeg, caawa ayaadna la afuraysaaye. Wuxuuna toosay isagoo faraxsan oo yaqiinsan inuu la kulmayo Rabbigiisa. Uuna soomay maalintii dambe. Galabtii Jimcaha 18 Dilxaji sannadkii 35aad ee Hijriga ayay fallaagadii ka soo boodeen derbigii guriga, waxayna u soo galeen isagoo akhrinaya Qur'aanka Kariimka ah. Waxayna ku dhufteen seeftii, dhiiggiisii daahirsanaana waxa uu ku daatay musxafkii, isagoo ku aadan aayadda dhahaysa, Allah ayaa kaaga filnaan doona iyaga, waana kan wax kasta maqla, wax kastana og. Waxa uu shahiiday isagoo 82 jir ah. Xaaskiisii Naa'ila ayaa isku dayday inay difaacdo, farahana waa laga gooyey. Geeridiisii waxay ahayd albaabkii fidnada ee ummadda ku furmay oo aan weli xirmin. Cusmaan ibnu Cafaan waxa uu ahaa buur samir ah,
badweyn deeqsi ah iyo tusaale xishood ah. Noloshiisa waxay ahayd mid u go'an Alle iyo rasuulkiisa. Waxa uu ku noolaa sharaf, wuxuuna ku dhintay dulmi, laakiin dhaxalkiisu wuu waari doonaa. Kitaabka Alle ee maantaan aqrinno waa mid ka mid ah midhaha dhaxalkiisii. Waxa uu ahaa Dhannuurayn, saaxiibkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam, iyo mid ka mid ah 10kii jannada loogu bishaareeyey. Naxariista Alle iyo raalli noqoshadiisa korkiisa ha ahaato.